kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka milicsigii waayihii hore oo aad isbuuciiba mar qura ka daawan doontaan channelka Faarax Fawzi. Isbuucan waxaan soo qaadan doonaa shakhsi aad caan ugu dhex ah ummadda Soomaaliyeed, waana Cigaal Shiidaad. Cigaal waxa uu ahaa nin aad u xigmad badan, fulinimana lagu xanto. xigmadihiisa qayb ka mid ah ilaa haatan ummadda Soomaaliyeed waa ay isticmaashaa. Aanu bilowne Cigaal oo degan meel miyi ah ayaa goor barqa ah u socdaalay meel yara hawd ah, waxa uuna horay u qaatay ul iyo weyso. Markii salaadii la gaaray ayuu damcay inuu weyso qaato. Markuu weysadii bilow isiri ayuu weysadii bahal mooday. Intuu ushiisi degdeg ah u qaatay ayuu weysadii ku dhuftay. Waxa uuna yiri oraahda caanka noqoto ee ah wayna garanaysaa oyna gaadaysaa. Cigaal iyo col. Cigaal ayaa isagoo maalin gurigiisa jooga loo sheegay in col u soo socdaan. Markaasuu xaaskiisii ku yiri, naawaan isduubiye igu dul ooy oo wuu dhintay dheh. Markii colkii u yimaadeen iyadoo ku dul ooynaysa bay yiraahdeen, maxaa kugu dhacay? Waxay ku tiri, ninkaygii Cigaal ahaa baa iga go'ay, yacni dhintay. Waxay weydiiyeen mar labaad, oo goormuu dhintay? Isla markiiba Cigaal oo meeshii isku qarinayay ka soo booday ayaa yiri, naashaluu go'ay dheh. Markaas ayay colkii u socday inay dilaan iska laabteen oo ma aysan dilin Cigaal. Cigaal iyo wiilkiisii. Cigaal baa maalin isagoo gurigiisa hor taagan oo sita waran af badan baa waxaa ku soo garguurtay wiil uu dhalay oo aan sanad gaarin oo 4 fool oo keliya leh. Markaasuu Cigaal ka baqay wiilkan afka ku soo taagaya ee ku soo socda. Cigaal baa naagtiisii ku yiri, na iga qabo 4 foolaha rag la iskuma sii daayee, oo gadaal u cararay. Naagtii inuu la ciyaarayo ayay mooday oo kaftan bay u qaadatay, waa ayna iska qosashay. Goortuu arkay inay qoslayso baa wuu warankii la baxay, waxa uuna madaxa ka taagay saqiirkii yaraa. Halkaas ayuuna ku nafbaxay. Cigaal iyo Naylo. Waa Cigaal oo meel gurigiisa u dhow jooga goor barqo ah. Waxaa hal mar ku soo diday koox Naylo ah oo si xoog leh ugu yaacaya dhanka guriga. Hadda Cigaal sidaad ku taqaanidba ma aha nacas ay taladu ka hoos baxdee. Waxa uu is yiri, allaylehe belada kuwaan dabada ka wadayay ku heline, ka gaarsii oo baxso. Markaasuu Naylihii hor cararay isagoo tafta haysta oo si xoog leh u neeftuuraya. Waxaa arkay dadkii guriga joogay oo fahmay in maanta Cigaal maalintiisii tahay. Waxayna weydiiyeen, war maxaa kugu dhacay Cigaal? Wayna ku qosleen. Haddee ma Cigaal bay ka gerheli? Waa nin aftahan ah oo sida la isku furdaansho ku soo takhasusay. Wuxuuna ku jawaabay, war kunkaas wada madaxa madow waxay ka soo dideen baan anigana ka soo diday. Isagoo tilmaamaya in talada baqashada uusan keli ku ahayne ay la wadaagaan ku Naylood oo iyaguba isku raacay in guriga la qabto inta aan la daba goosan. daawadayaal intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka isbuucan. Waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Faarax Fawzi. Dhanka farsamada waa Cabdullaahi Catoosh. Intaan barnaamijkan barnaamij la mid ah ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. Fadlan ha hilmaamin inaad subscribe saarto sifo aad u hesho barnaamijyo aad u xiiso badan. Mahadsanid.